السلام عليكم كسر بعد برتولتين عبد الله منصوري وحنا درجنا دمانتي بين الوعنان iyo wanaag at wada swanteen waxaynu muuqaalkii kan ka horeeyay aan ku soo qaadanay ama aan ku gorfaynay buudkii loo yaqaan al-harb al-kasal oo qoray Khalid Abu Shadi buudaas oo xalqadii hore ama muuqaalkii hore aan ku soo qaadanay hordhiciisi isla markaana aan ku soo qaadanay mowduuc runtii aad u muhiim ah oo ay kamid tahay waa maxay kasalku dhibaatooyinka uu kasalku inuu hayaa xanuunka al-ajza ama kasalka loo yaqaan muxuu inuu hayaa ama wax qabad la'aantu muxuu yahay sidee diinteenu lid ugu tahay xanuunkan soo kala farqiga u dhaxeeya al-kasal waxa loo yaqaan iyo ajzi waxa loo yaqaan mowduucdaas inuu xalqadii hore aan ku soo qaadanay insha Allah maanta xalqadan oo gabagaba noqon doonta waxaan ku soo qaadan doonaa buuda qaybtiisa dambe oo runtii qayb aad u muhiim ah talo maxay tahay waa qaybta aynu kaga sheekayn doono 10 qodob oo runtii muhiim ah oo qofku hadii uu la imaado ka saacidaya inuu xanuunkaas meel iska saaro isla markaana noloshiisu ay tubta wanaagsan qaado noqotana mid ku astaysan nashaad iyo firfircooni iyo dhanka horumarka mar walba aynu wada socono soo dhawaada waxaan hore u soo sheegnay in kitaabkan loo yaqaan al-harb al-kasal uu kamid yahay kutubta ugu muhiimsan ee ka hadla self development ama horumarinta nafta kaasoo markaa runtii yahay mid xaqaa'iq badan runtii ay ku sugan tahay waa 117 page waxaan jeclaan lahaa qof walba inuu akhriyo waxaan idin soo gudbinaya ama qodobadan idin soo gudbinaya xogta aan idin soo gudbinayo waxaan is oran karayaa waa wax aad u kooban weeyaan xasuusin oo kaliya ay runtii noqonaysaa inaan runtii aad fariin ka qaataan laakiin buuda mucdiisi iyo qodobka faafahintiisa buud ayaad ugu tagaysan waana runtii buud qaabku u qoran yahayna qaab runtii aad u fudud u yahay waana runtii saynu soo sheegnay xanuun waxa weeyaan dunida oo dhan aafayay mujtamacaadna haduu ku dhaco baaba iyo horumar la'aan u horseeda qofkana haduu ku dhaco runtii saasoo kale u horseeda marka wax loo baahan yahay weeyaan maanta in runtii aynu la dagaalano isla markaana in badan ay ogaano xanuunka muxuu yahay maxaa keenay asaasay aynu hortagi karnaa insha Allah marka 10 qodob baynu insha Allah isla wadaagi doonaa waxaan jeclaan lahaa in si fiican bal 10 qodob loo dhigto isla markaana qof walba uu la imaado si uu xanuunka runtii uga badbaado waa aafatu hadi dunya li insaan waxa weeyaan ay kamid tahay runtii qodobkaasi ummado badan iyo dad badanna runtii hankoodi iyo horumarkoodi hoos uga dhigay qodobka koowaad ee runtii aan kaga badbaadana waxa weeyaan in soo qaadano waa ducadu waa taadka qofka muslimka ah mar walba la timaado oo ducadaadu ay badato waa mar walba oo wanaagaaga iyo marandiliyadaadu ay markaas soo wanaagsanaan weeyaan sida daradeed si aynu soo toobno laba qodob oo kaliya ku soo toobana ducada horta ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan gal oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ka magan gali jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala kasalka xanuunka loo yaqaan allahumma inna a'udhu xanuuno badan ka magan galay allahumma inna a'udhu min al-hammi wal-huzni wal-bukhli wal-kasali wal-'ajzi wa ghalabati ad-dayn wa ta'id qodobadaas soo dhan wartii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu runtii ka ducaysanay nabi waxa uu jiray al-kasal inuu ka ducaysanay marka kasalka iyo ajdu waa laba dhibaato oo runtii aad u waaweyn weeyaan soo kale waxaan soo qaadanaa in on leenahay in qofku ku ducaysto ilaahay subhanahu wa ta'ala sugnaanshiyo iyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala kaalmeeyo mar walba اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ثبتني بالقول الثابت دعوين كبدن سغنانشيا runtii tilmaamaya inuu runtii qofku in badan runtii uu soo qaato marka qofku duco ku ducaysto mar walba subax walba ku ducaysto oo mar walba ku ducaysto waa runtii shay aad u muhiim ah oo xanuunkaas in badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan galo qodobka kale waxa weeyaan in qofku uu ka baqo inuu ku dhaco astaamaha nifaaqa ama astaamaha munaafiqiintu ay leeyihiin وليس سبحانه وتعالى سوى الماضي منافقين وحولي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة ما إيمانيا إلا وهم كسالى يعني يروا الصفة وتأيمانيا كسلة والله بس الله كسالمة والله بنو عبا كل عمرنا وكسل البدني أو تشرحان مدونيا يعني دعادي عبادات أي قبطان مرنا وحوي وكسل نفسي يعني إن جوابها خير كبقى كأجل ودان دوني ما يعني لبضع حنبوا كل عين كاسو مرتا أهور سيرية إن نتيجة منافقين جزار منافقين تقول نقضوا في الدرك أسفل من النار هو إن نكبق أن إن صفة منافقين إنه قد عضو لذلك وحى الله يقح لنا هذا سبيلان لا ثالث لهما لبوا الدأيات أو من صدحان عن الهين وضم منافقين أي مريان أو منافقين تي أهل كود أهو كل ضمينس في الدرك أسفل من النار إيه وضم مؤمنين أي مريان كل ضمينس على الجنة والنعيمها كل ضمينين متى كيف أيض راعسة كي أيضا راعسة ودورشة وأنت الوصوهر اللي دوني ما كان أنت لك عشته كوناس أنت أدمرته حزب المؤمنين مركا قلت صدحنا سوق نحويا قف إنه مر والبا كفكره
يعني اليقين بالجزاء أبال مريت إنه مرة الروميسنا إسلام مركان وكفكره يعني واحد انتاسو عباداتية انتاسو أفعاله اللي سمية أجر واوين بتكوني تونتاني واحد كم لا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم يعني إن أنت قف أطرت الدين وياده أما أدوناج أما الصحة والدين تودوياده أي كخير بدأ إن ديال كيس عصاص يعني أدهش ومات الجوادية فوق أي واحد يعني إنه قانا أدرينته أي كخير بدأ قف الدعوة دي دينته أدوياده واحد كم من صلى الصبح في ذمة الله قف الصبح ساعات واحد كذا ويكون شراء من دليل إله من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام نصف الليل فكأنما قام نصف الليل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فكأنما قام الليل كله يعني قفلة جماعات كذا يعني صلاة العشاء وقف يعني همين كي كلبر تاعنا قفلة صلاة الصبح كذا وقف ما نمتي أولا تاعنا وعطى والله مذا يعني قفك إنه صلاة سجارة أو تكذا يسرو إلى سبحانه وتعالى يعني تضوع عيكتها وحي يقول لي أنت عشان إلا تنصر ضد إحدى كذا يعني waxaasoo iyo qodobo badan oo badan oo ayna ka gayooneen waxay noo tilmaamayaan in qofku uu kaslaanimo intuu ka tiro u daacaadka iyo cibaadaadkaasi uu faa'iideysan lahaa marka uu runtii uu aad iyo aad ugu dadaalo qodobka afraad soo qaadana waxa xuduud wuduux الهدف وإن الهدف الله leedahay nolosha aad u soconayso mid aakhira iyo mid adduunyo waa inaad leedahay way hadafka inaad leedahay waxay ka saacidaysaa in noloshaadu qaab iyo hab la mariyo jid la mar ay leedahay haddaan garanaya maanta halkan u socdo wadadii ugu munaasabsaneed ugu dhaweyd baa maraya sadarad waa in hadafka aynu leenahay oo inoo cadeysan waxaan qabanayna oo wax jihaysan oo meel ku jihaysan oo runtii uu noqdo laba tusaale soo qaadana Rabci ibn Aamir saxaabigaasi markuu Rustum boqorkii Rustum u tagay muxuu ku yiri boqorkii Rustum markuu ku yiri yani maxaa u timaadeen halkan wuxuu ku yiri linakhruj من عبادة العباد إلى عبادة الله إن كسرنا أضمه يعني إن يلبس عابدان أو أن أصار محي إله سبحانه وتعالى وحده كلية عابدان صوت أن كسرنا ظلم أديات على هيستان أي كوهيان ضدك ونصارنا عدالة الإسلام كلية وفي قصة اللي حمرسه ورنتي وآدو أتكسرنا والله يابي وكفكري هدي يعني أستري راسا أفكريه بل كور مقائد كود يهجامية شو يصير أفكريه وفي هذا كدليل صحابي الله سبحانه وتعالى أكرر على هذا هنا ونحرسته وفي هذا كدليل لكن والله يابي ونكفجع إسلام كان وفر يعني عد بدن أدري سرايات بدن أدري سو مكان أسوء أولاده يعني أدنى والله يابي حمد مركز أصحابها زي من معاصرة ضمان سوق هذا كان في كندي بقرتي مدحوني صو مريكا متبدا مدحونياشي كوسا أقول لحد كلمة هو ضلك قبصدي وحقولي مريت رودنا هل هدف الليدين هدف في ناس وحويان إن قف مريكان إنه طيح دوشي إنه صعره كوسا أقول لحد تيجوا هذا كان ليه نصيب درة كوسا أقول صدق حلة تيجوا أكيد الدلي سرا أو مركا لجود دلي يعني اغتيال أما أساسنيشن لجود دلي مركي الدلي كون سريال بقول سريال إيه اللي حدن فيه أي النبي هدف فيه الله أو مريكان هو ليس إنه قف مريكان يعني ضيح دوشي صعره لكن waxa la yaab leh marka nin kamid ah saxafiyiintii wadanka Mareykanka ayaa waxa uu tiray hay'adii naas ayuu tiray wadanka Mareykanka u qaabilsanayd xagga hawada iyo fadaa'ida u qaabilsanayd waa uu wareysanay marka dadkii marka wuxuu wareysanay nin kamid ah kuwii meesha xarxaariyay wuxuu ku yiri barka wana shaqadan hayso wuxuu ku faraxsan shaqadan hayo waa shaqo aan ugu adeegay ama aan qayb ka ahay in nin Mareykan xagga yani hawada loo diro يعني هو أمد هدف لو سميه لما أنتوا هدف كاي هو تشقينا يعني إن هالك أجاران متى أمدنا هدي هدف لو سميه هدامياش وده هدف وسميان ده هرمر بالجاري هدو قف ونرش هدف وسميانا هرمر بوجاري ووضد يشتك أمريه بدو يعني وعد يبون غضنا عد سواء كذا مثلا أي روتي أي كفاية سلسو عند الدتيو قدر كشنا ده حوي المحاسبة يعني وقفت نوتي نفتي حسابيه مركز طول نفط هذا حسابه مركز طول يعني واحد سمينا سيا فعاش الله إيمان سيا حسابه ومركز طول وضد هذا سي ولا تشيلسو خبرات بدأ أدهيلسو وحي كا يعني خلطات سمينا إلى سبحانه وتعالى دوته بتفيرسو مرة واحد أيضا كشف حساب الأمس يعني صوبار تاريخ فقطان يعني كل سميسا شلي وحي أتقبطي السميسو وحي كيرسا بهدف تصحيح يعني الغد بالروح السمينسو إن السيس حدث كل هابيسو كل قابيسو ودوسي وناجسو أي كيرسا لحدا قضى بكسور كمان دبي ده حسابته يعني شلي وحي تاتري يا شلي وحي سميسا إن الحسابسو وحي كاسا عايزة بالروح القوانس يعني دوسي وناجسو يا بري واحد قبل سنة رنتي أد ونجس ذلك باللهاين قار كم بدأ تابعين تاي لهاين يعني إنه يعني صباح والله واحد نصور كعنا إن رنتي نلا شيء هذا هي النفط إذا أنو حسابنا سوى حن أنو قبلنا وح ونعس رنتي أيوسين نقطان قلت الحادث سوق نحويان إنه رنتي أين ودده ضمرنا إسلام كان إن بدنا يحسسنا دكتي سود ذالي وضد أي صامرين أما السير المجتهدين لازم عن تعالى القرآن سيقول وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يعني محمد صلى الله عليه وسلم الله اللي يحول ليه يعني قصص دي هريه رسول شهر waxaan kaaga warramana si qalbigaaga aan ugu sumo
marka yani ambiyadii yani jidka ay soo mareen ama nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam jidka uu soo maray iyo dhibaatadu dacwada iyo diinta u soo maray ee wax allaale wixii dhib loo geystay iyo noloshiisa oo dhaqaaqay ahayd uu nabi sallallahu alayhi wasallam ku soo noolaa saxaabadu qaabkay ku soo noolaayeen culimadeena qaabkay ay ahaayeen dadkii marka diinta u soo halgamay ee halka soo dharsay qaabkay iyo wadada ay soo mareen wax allaale wixii dhibaato ku soo gaadhay iyo jid iyo dadaalka ay ku jireen waa in kaasoo kale lala imaada marka yani habar fadhida lagdila fudud baa leeyahay yani in aynu fadhino oo kaslaanima aynu u dul qaadano inayna haysato waa inuu ceeb iyadoo marka dadkii inaga horeeyay soo dhalay soo dadaalayeen oo noloshoodii iyo tii diintooda marka ay horumariyeen marka iyo tii dalalkooda marka waxa muhiim ah buu leeyahay quraadu inuu ka faa'iideysano dadkii hore guulihii ay gaareen iyo dadaaladii ay sameeyeen marka inuu aad uga faa'iideysano oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ugu horeeyo laqad kana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana qodobka toddobaad waxa weeyaan quraadu soo qaadanaya qofku mar walba inuu xasuusto mawdka oo marka uu malayo niyada mar walba uu ka hayo su'aal baa jirto limaada nakrahu al-mawt maxaynu geerida u nacnaa waxaan geerida u nacnaa yani hadalkii salamata bin dinar uu yiri oo lahaa oo yani uu ku lahaa yani waxaan u nacnaa yani geerida in waxa aynu maanta ku jirno iyo ficilada aynu sameynayno aynaan ku qanacsanayn iyo wixii aynu soo sameynay maadaama aynaan ku qanacsanayn waxa imaanaysa marka inaan wixii inaan geerida marka aynu nacno marka ninkaas wuxuu soo qaanay salamata bin dinar waa sidii nin musuqmaasuq aad ugu jira musuqmaasuq aad u dhex dabaashay oo runtii marka wax badan hanti badan lunsaday oo ka baqaya xilka uu hayo iyo xasriga deegaanka ku jira inuu ka baxo saanu qaadigii intuu hortay aan xukunkii lagu qaadin sida daraaddeed salamata bin dinar yani qodobka uu soo qaadanaya oo dhamaanteena marka aynu nahay kaasoo ah inaynu runtii ayna afcaasha iyo waxaynu soo sameynay aynaan ku qanacsaneen saynu ilaahay subhanahu wa ta'ala liqaabiisa iyo kulankiisa aynu marka aynu hortano inoo xisaabiyo lidaalika waa marka waxa muhiim ah in runtii waxa aynu sameynayno aynu ku dadaalno mar walbana geerida aynu xasuunaado inay nagu dhici karto oo berri aynu soo toosi karno inagoo marka aynaan waxa nolola aynaan ugu talagelin marka waxa muhiim aynan waxa aynu soo sameynay waxaan ku qanacsannahay uu noqon karayo marka aynu habayno waxaynu maal walba aynu qabaan qodobka sideedaad soo qaadan waxa weeyaan al-maw'ida يعني قف إنه وانا وبصده ما لتصو وانا أي تجت إنه رنتي قف وترى ما أنا بدأ وساقاته كواحد أطلع هدي وفطور إيه كسلان نما إيه عاجز نما أي تقول عضو واحد أوتك تاع صاحبك أوتك قفت تقول أوتك ويدي اللي بعتذر كويستا إذا ما كان وانا ده وحي وانا الكوسين كريو كقاطع عد متى ديادو إيه كرتا مشي خارج ما عد وترى وانا ده كسوقاضه إلا يعني سننا وحقها تضبطي عشان قف إنه هالمر وانا قاطع لذلك وحيابها لوتش دي جمعين الصلاة جمعه يعني خطبة للتوجد أو قف خطبة واجب أقول إنه قف إماضة إذا ما كان يعني خطبة السنة كذا الوطري أما واجبات كذا الوطري يعني أرى السنة كذا إنه قف خضيب ويضرك كبر على شيء الله كعبسده يعني إنه يتهاي قف إنه ويجيب مركز الدراسية ويجيب قف وبهاي يعني إنه بهاي موعظة يديرين وبهاي تاسو مركوي تاسو وكسرنا يوم مركا قابين سافع عشيسة قولك سيعان سوق هذا نحويان عد الله صاحبه يسو عد مركا وح وناسن إيو نشاط إيه فرعون إكوه هرسة هنقطه لذلك بقى يقولها لا تصحب الكسلان في حالته كم صالح بفاسد آخر يسد عدو الجريد إلى البليد سريعة يعني هلا صاحب قف عاجز والكسلان حارد وكسرية كسلان ماذا كل صاحب ويا إمس أيا وناسنا ومد لا صاحب مد حن لا صاحب أو كي حما مركا وسامي قفك وناسن قفك حني يعني مر والبوا عدو بيس دقدق مثلا إن قفك وآد وقدق تونادو ورنتي وكفوجيناada cid ula saaxiibayo waa wax runtii aad u muhiim ah marka yani cid Allah saaxiibay cid firfircooniye nashaad iyo horumar iyo cibaadada taacad ku hogaaminaya ha noqdo lidaalka waa saaxiibtinimada laba xadiis laba mid ku soo koobo midna waa sidii taxaamil miski waa mid cadar sida oo hadii aanu cadarka kuwa marin udgoonka cadarka ayaa ka faa'iideysa midna waa sidii mid naafiqa kiirood yani dab horinayo oo hadaanu ku dubin oo adiga ku soo dhaarsin dabkaba raa'ixa iyo urin yani xunbad ayaa kala kulmaysa marka cid la saaxiibayana cid marka wanaagsan oo xagga horumarka iyo xagga wanaaga iyo xagga firfircoonida ku jeeynaysa runtii waa noqotaa waxaan ku soo dabagabeynaya qofku waa inuu noloshiisa ka ilaaliya oo isugu sheekeen hadalada niyad jabka leh يعني وين هذا لذا وناس يدير أو شيء وحسب كريه ما أودي كريه دباطة هي صدق عاجز بالله هاي صار هاي يعني وح الله له واحد دباطة قيل كأهرب وقف وينست إلى عليه
balse uu ku dadaalo hadallada wanaagsan ee runtii noloshiisa qaabeynaya ee qurxinaya ee dhiirigelin ku sii yani kordhinaya taasoo markaa camalkiisa ka dhigaysa mid firfircoon iyo inuu wax badan u qabto 10 qodob waa 10 qodob muhiim ah oo loo baahay runtii inaan aad u dhugano isla markaa noloshiina ku dhaqno mid kasta waa uu si faahfaahsan yahay aad ban yani runtii aan soo toobay laakiin buugga ayaad ugu tagaysaa inta ku kulmano kulantan xidha waxaan tagay dumtum fi ra'aytillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi